soo dhawaada saaxiibayaal kulan wacan oo wanaagsan. waxaynu barnaamijkan diiradda ku saari doonaa tan iyo markii ay timitay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro istaraatiijiyado dhowr oo ay qaadatay isla markaana ay ugu kur gashay sidii ay nabadgelyo iyo wada noolaansho uga keeni lahayd gobolka Sanaag iyo guud ahaanba bariga Somaliland. madaxweyne Ciro ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu u ciyaari lahaa istaraatiijiyada diblomaasiyadeed oo awoodda ku saarayo sidii maamulka la magac baxay Waqooyi Bari ugu keeni lahaa nabadgelyo iyo wada noolaansho, isla markaana culaysyo siyaasadeed u saari lahaa maadaama ay maamulkaasi sheegeen inayna ka tirsanayn Somaliland isla markaana ay yihiin maamul si toos ah u hoostaga dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweyne Ciro ayaa arrimahaasi markii uu darsay waxa uu goostay inuu si toos ah xiriir ula sameeyo maamulka Puntland oo muddo ku siman dhowr iyo 20 sano ay Somaliland ka dhaxaysay dagaal iyo xurguf, isla markaana ay isku hayeen dhanka xuduudka. arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay xukuumadda Somaliland qaadatay inayna si toos ah iyo si kalaba ayna ula hadli karin maamulka laga magac baxay Waqooyi Bari, isla markaana ayna kala xaajoon karin arrimaha la xidhiidha nabadgelyada iyo sidoo kale in la isdhaafsado maxaabiistii lagu qabqabtay dagaaladii ka dhacay gobolka Sool iyo deegaanka amba saldhigga ay ciidamada Somaliland deganayeen ee lagu magacaabo ciidamada Somaliland ee lagu magacaabi jiray Gool-Jacade. Somaliland ayaa tallaabooyinkan u qaadaysaa si maamulkaasi ayna si toos ah xiriir ula yeelan, maadaama maamulkaasi uu dhowaan ku dhawaaqay inuu si toos ah u hoostagayo maamulka looga arrimiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. haddaba Somaliland ayaa waxa ay samaysay inay gogol nabadeed dhigto magaalada Cerigabo ee xarunta gobolka Sanaag, halkaasoo beelaha wadadega ay doonayso inay isugu keento, isla markaana ay ka takhalusto hanka maamulka la magac baxay Waqooyi Bari ee doonaya iyagu inay gobolka Sanaag ka dhigtaan xarun ka hoos timaada maamulkaasi, isla markaana hamigoogii halkaasi uu ku soo afko. sidoo kale madaxweyne Ciro ayaa istaraatiijiyadaha kale u adeegsaday waxaa ka mid ah inuu markii ugu horeysay heshiis la galay maamulka Puntland, kaasoo ay Somaliland muddo dhowr iyo 20 sano ah dagaal toos ah iyo khilaaf u ka dhaxeeyay, isla markaana isku hayeen dhanka xuduudka. arrintan ayaa imanaysa kadib markii uu Ciro doortay halkii uu kala hadli lahaa maamulka cusub inuu xiriir gooniyo la samaysto maamulka sii jireenka ah ee Puntland. arrintan oo u muuqata mid ugub ah tan iyo intii ay Somaliland jirtay, laakiin dhanka kale laga saadaalin karo curyaamin iyo sidii xiriir loo gelin lahaa maamulkaasi. arrintan ayaa imanaysa kadib markii madaxweyne Ciro uu qaatay siyaasadda furfurka, isla markaana uu doonayo in maamulka Waqooyi Bari uu isku saaro culays xoogan oo furfura oo ay dareemaan in dhan walba ay kaga wajahan yihiin ciidamo iyo sidoo kale maamulo kale oo ay soo kala horjeedaan. arrintan ayaa ilaa hadda dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay ku sheegeen inay tahay istaraatiijiyad cusub oo ah dagaalka qabow.